maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay maanta meel fagaaraha toogasho cadaalada kula fulisay 4 dambiil oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ay maxkamaddu ku heshay dambi ciqaabtiisu gaarsiisan tahay dil toogasho goobta ay toogashadu ka dhacday barxadda dugsiga sare ee General Kahiye waxaa ku sugnaa mas'uuliyiinta hay'adaha ammaanka mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo waliba shacab u soo daawasho tagay toogashadaasi cadaaladda ay dawladda Soomaaliya fagaaraha ka fulinayso dadka la toogtay ayaa waxay kala hayeen ismidaamiye fashilmo oo shabaab ka tirsan oo la yiraahdo Caawiye Axmed Jaamac 25 jir ah waxa uu Caawiye ahaa shakhsigii fuliyay qaraxii hoteelka Maka al-Mukarrama 9kii bishii 11 2013 qaraxaasi oo loo adeegsaday laptop ayaa Caawiye gudaha hoteelka waxa uu qaraxaasi kula beegsaday dad fara badan oo gudaha ku sugnaa waxaana qaraxaasi oo aan gudaha ka geysan wax khasaara uu sababay dadkii gudaha hoteelka ku jiray inay banaanka u kala yaacaan Caawiye iyo shabakadiisa oo qarax kale oo banaanka ugu diyaarsana waxay banaanka hore hoteelka ka fuliyeen qarax loo adeegsaday gaari kaas oo sababay dhimashada dad shacab ah ciidamo ka shaqeynaya ammaanka oo ku jiro sargaal la yiraahdo Ekis Gaashaanle marxuum Abuukar Cabdulla Aadan iyo waliba dad kale Caawiye ayaa qaraxaasi markii uu dhacay kadib ciidamada ammaanku waxay ka qabteen gudaha hoteelka waxaana baaris kadib uu qirtay inuu isagu ahaa shakhsigii soo maleegay qaraxii hoteelka Maka al-Mukarrama waa kan Caawiye oo ka hor intii aan cadaaladda lagu fulin waraysi uu siiyey SNTV Radio Muqdisho ku sharaxaya doorkii uu ku lahaa qaraxaasi hoteelka Maka al-Mukarrama لا تنقلها لا تنقل عادها لا تنقل في المصنع أي توصل على المسلم ما تلقى ليش اسمه كده يعني عاد مسك كده لو بدنا نشاهد مركعوا كلها مش صاروا كلها من الطبع ولا تعبان عليها لا طبع عليها مركع تلفزيون محمد علي كان والله صار هذا لا تنمس هذا مثل ما قال لا تنمس سامع بس أكبر وخلص المصنع كلاش يستمر بيترك بالطريقة أيوة كلها بيستمر مركع كلاش حق يستجيب مركز كتير يسوي أساس أطلع يعني مش راح استمر لازم صحة طعم حقوق الإنسان جواز هذا وقع سنة لكن هذا المحظة نصر مثلا نوصل على على هذا مثلا مثلا أنا أول اللي بس كنا والله إن أنا كنا على طريق لا تحسن أخاف كل يوم Caawiye waxa ugu dambeyntii la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 7 bishii 7 ee sanadkan waxaana lagu fuliyay xukunka ay maxkamaddu ku riday oo ahaa dil toogasho maanta oo ay taariikhdu ahayd 24 bisha 7 sanada 2014 dambiilaha labaad ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa gacan ku dhiigle Mustafa Maxamuud Shidane oo 22 jir ah Mustafa waxa isaga iyo Cabdinaasir Khaliif Maxamed oo maanta lala toogtay ay si wada jir u dileen Ekis Dable marxuum Cabdi Maxamed Xuseen oo ka tirsan ciidanka xoogga iyagoo ka qaatay qorigii uu hubaysnaa waxaana labadan dhagar qabe ay ka tirsan yihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waxaana maalmo kadib markii ay dileen marxuumka laga soo qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir intii ay ku jireen gacanta hay'adaha ammaanka ayaa waraysiyo aan si kala gooni ula yeeshay waxay sharaxayaan sida askariga u adeegaya bulshada u dileen waa kan marka hore Mustafa oo sharaxaya sida uu askarigaasi u dileen isaga iyo saaxiibadiis amar ilaahay shalay subaxan xaafad ka soo wada baxnay
anagoo iska socno magaalada iskaga soo qaraab tagnay aan meel waxaan uga dabanimay yar askariga yarka askariga markaan ka dabanimay marka yarka baabuurka wadaya wuxuu yidhi markaan macnaha qoriga maan ka qaadan lacag oo beesa waayahay markii la yidhi wixii la soo degana yar ila socday ninka wuxuu ku qabtay bistoolad markaas wuxuu yidhi isku soo dheji qoriga iska dhig qoriga markii uu yidhi qorigii soo meersay qoriga markuu soo meersadana xabadoo dhaceen xabadii markii ninkii ku dhacayna uu dhacay oo qorigii ka qaatay anna booshkii ka qaatay qorigii waa la qaaday xigtoogtaa ligey $700 magaasha kulley ninkii darawalka baabuurka ka ahaaya qoriga ee waxa gaday aan lacag $100 aan ka qabanay cabdinaasir khaliif maxamed oo isna gacan ku dhiiglihii la dilay mustaf askariga u adeegaya bulshada ayaa isna sharaxaya sida askariga u dileen meesha markii suurtagal ah anku baabuurka meel taagan aniga askariga meesha soo maray aqoon uma lahayn qoran uma noqon wuxuu yiri saacadkan kuma horeeyo ninkan qoriga wata qorigaas kaliya oo dhintay ninkaas qoriga aan kaalay haye marka imse qof baad haydaa 3 qof ay maxaad wadateen huba muskilada lama makaarafo wadin wiil kala ahayn wiil kala qorshaha galay anigana waa la soo adigana bistoolada wadateen marka kee xabadda ku bilaabay wiil kala la soo bilaabay magaciis meeqa xabbo ku dhuftay wallahi intii tan qiyaaska labadan gacan ku dhiigle oo iyagoo ka tirsan amniyaadka al-shabaab dilay askari bulshada u adeegayay waxaa iyaguna ay qayb ka hayeen maanta 4 dambiile ee lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska generaalka aye qofka afaraad ee al-shabaab ka tirsan ee maanta la toogtay ayaa isna waxa uu ahaa nuur cabdulle cawaale oo ahaa hoobiyarida ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab nuur waxaa lagu soo qabtay qori hoobiya oo noociisu yahay 82 milimitir iyo 3 xabadood oo rasaastiisa ah qorigaasi oo ururka al-shabaab ay ku duqayn jireen xaafadaha magaalada muqdisho nuur oo lagu soo qabtay degmada Dayniile ayaa markii ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen kadib waxa uu sharaxayaa kamid ahaanshiisii kooxda al-shabaab iyo weliba sida uu qorigaasi xaafadaha muqdisho ugu duqayn jiray hoobiyarida nuur cabdulle cawaale waxa ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku riday xukun dil ah taariikhdu markay ahayd 25 bishii shanaad sanadii 2014 waxaana xukunkaasi maanta lagu fuliyay hoobiyaridahaasi iyadoo xukunkaana ay ku fuliyeen 4 dambiile al-shabaab ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo safaf u soo galay si ay u gutaan waajibka qaran ee ka saaran inay fuliyaan amarka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yarow ayaa kadib toogashadaasi cadaaladda waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka isagoo sharaxaya marxaladii kala duwanaa ay soo mareen dhagarqabayaasha maanta fagaaraha lagu toogtay ismiidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac 25 jir ah ina saynab jaamac ku dhashay degmada burco wuxuu qarax ka fuliyey hoteelka maka al-mukarrama taariikhda markay ahayd 9 bishii 11 2013 qaraxaas oo sababay dhimasho dad fara badan oo ka mid ahaa akis gaashaanle abuukar cabdulle aadan maalintii ay taariikhdu ahayd 7 bishii 7 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay ismiidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo taariikhdu tahay 24 bishii 7 2014 waxay ku fulisay xukunkii dilka ahaa taariikhdu markay ahayd 1 bishii 3 2014 gacan ku dhiiglayaasha kale ah 1 gacan ku dhiigle shabaab mustaf
maxamuud shidane 22 jir ah ina canab faarax ku dhashay guraceel degan hodan 2 gacan ku dhiigle shabaab cabdinaasir khaliif maxamed 21 jir ahaa ina salaado maxamed ku dhashay guraceel degan hodan kuwaasoo cabdinaasir oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu xukuntay inuu ka tirsan yahay ururka nabaddiidka al-shabaab kadibna uu ku baxay cafis madaxweyne waxay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan u dileen marxuum akis dable cabdi maxamed xuseen iyagoo ka qaatay qorigii uu ku hubaysnaa maalintii taariikhdu ahayd 8 bishii 6 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho maalintii taariikhdu ahayd 15 bishii 6 2014 xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka darajada koowaad waxay ka qaateen rafcaan maalintii taariikhdu ahayd 13 bishii 7 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay 1 gacan ku dhiigle shabaab mustaf maxamed shidane 2 gacan ku dhiigle shabaab cabdinaasir khaliif maxamed waxayna ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu maanta oo taariikhdu ay tahay 24 bishii 7 2014 waxay ku fulisay dilkii oo horey loogu xukumay taariikhdu markay ahayd 24 bishii 5 2014 shabaab nuur cabdulle cawaale 21 jir ah ina xaawo cali ku dhashay galgaduud waxaa lagu soo qabtay qori hoobiye ah noociisu yahay 82 mm iyo 3 xabadood oo rasaasiista ah qorigaasoo ururka al-shabaab ku duqayn jireen magaalada muqdisho maalintii taariikhdu ahayd 25 bishii 5 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay shabaab nuur cabdulle cawaale waxayna ku xukuntay dil toogasho maalintii taariikhdu ahayd 3 bishii 6 2014 wuxuu ka qaatay xukunkii rafcaan maalintii taariikhdu ahayd 19 bishii 7 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale u fariisatay rafcaankii uu soo qaatay shabaab nuur cabdulle cawaale waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad dil toogasho ayay mar labaad ku xukuntay maalintii taariikhdu ay 24 bishii 7 2000 maanta oo taariikhdu ay tahay 24 bishii 7 2014 waxay ku fulisay dilkii hore loogu xukumay wabillahi tawfiiq 40 dambiile ka tirsan al-shabaab ee maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska jeneraal Kahiye ayaa ka dhigaya tirada maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan ee si cadaalada dhegta dhiiga loogu daray bishan barakaysan ee gudaheeda ilaa iyo 6 maleeshiyaada waxaana tallaabooyinkan toogashada ay imaanayaan tan iyo wixii ka dambeeyay markii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loo magacaabay gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare Cabdiraxmaan Cumda iyadoona tallaabooyinkan lagu tooganaya dhagar qabayaasha al-shabaab ka tirsan ay noqdeen kuwa ay xanuunkooda dareemaan maleeshiyada kooxda al-shabaab taas oo ka qaylisiisay horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab عبد العزيز أفريكا SNTV مقدشو.